ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya AWSOM ayaa si rasmi ah uga baxay magaalada Burhakaba ee gobolka Bay halkaas oo ay ku sugnaayeen muddo dheer. Kabitaanka ciidamada Itoobiya ayaa yimid iyadoo mas'uuliyadda sugidda amniga magaaladaas iyo sidoo kale deegaanada ku dhow ay si toos ah ula wareegeen ciidanka militariga Soomaaliya. Tallaabadani ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu xoojinayo awoodda ciidanka qaranka inay si tartiib ah ula wareegaan goobihii ay ka howlgali jireen ciidamada AWSOM. Burhakaba ayaa ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taala gobolka Bay, waxayna muhiim u tahay socodka gobolada Bay iyo Bakool iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed. Magaalada iyo nabaaxigeeda ayaa sidoo kale muhiim u ah qorshayaasha amni ee lagu dagaalamayo Al-Shabaab oo wali ka howlgala qaybo ka mid ah Koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya. Ciidamada Itoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka ah howlaha amniga ee deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan goobaha ay dowladda Soomaaliya sidoo kale ciidanka deegaanka kala wareegaan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Kabixitaanka Burhakaba ayaa keenaya in ciidamada Soomaaliya ay qaadaan mas'uuliyad dheeraad ah oo la xiriirta sugidda amniga iyo ilaalinta xarumaha muhiimka ah. Tallaabadan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli howlgalka AWSOM uu wajahayo caqabado ka dhanka ah maalgelinta, hoos u dhac iyo sidoo kale hubinta la'aanta ku saabsan dhaqaalaha. Howlgalka ayaa saameyn ku yeelan kara joogitaanka iyo sidoo kale howlaha ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo marar kala duwan la isku dayay in la helo dhaqaale ku filan oo lagu sii wado howlgalka. AWSOM waxaa loogu talagalay inuu taageero ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan sugidda amniga goobaha muhiimka ah, tababarka iyo sidoo kale howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo qorshuhu yahay in mas'uuliyadda amniga si buuxda ugu dambeyn loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wareejinta amniga waxay ciidamada Soomaaliya gelinaysaa mas'uuliyad culus, maadaama ay u baahan tahay ciidamo ku filan, qalab, saanad iyo sidoo kale taageero dhinaca sirdoonka ah iyo duqeymaha cirka ah si ay u ilaaliyaan goobaha laga baxayo.